آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكم ما يرو عدي دبنبك الله كقادو عدي دل الله وفي أنت بهن الله ديقو أنت بكتا الله بكسيو أنت دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستان الله نوغد ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad waa shirka uu ku baaqay madaxweynuhu iyo gogosha uu dhigay ee qaran. qodobka labaad waa askari aan ku aragnay baraha bulshada oo nin dhalinyaro ah oo ka hadlaya dhibaatada ka dhex jirta dagaalka. aan ku hormaro qadiyadda askariga. saad ogtihiin ma jecli mana aha wax wanaagsan, raallina kama ahin haba yaraatee wax u eg in khawaarijta dhankooda loo jilcayo ama magaranaysaa ay jirto in la sheego. arrintan askarigu uu sheegay haba yaraatee ma aha arrin u danaynaysaa khawaarijta, bal waa cagsigeeda. la dagaalanka khawaarijta istaraatiijiyooyinka loo baahan yahay ee ka maqan ciidamada ayuu askarigu ka sheekeynaya. wuxuu sheegayaa in ciidamada lagu dhex jiro. marka askariga warkiisa sheego baa waxaan soo qadimi doonaa xalka ugu wanaagsan oo arrintaa lagaga hortegi karo. waa qodobka koowaade. askarigaas wuxuu leeyahay ciidamadii waa lagu dhex jiraa, waana laga dhex adeeganaya. madaxda iyo saraakiisha sare iyo dowladda ayuu tuhmaya. wuxuu leeyahay waxa meesha ku baaba'ayaana waa wiilashii dhalinyarada ahaa ee loo tababaray inay dalka iyo dadka difaacaan. arrintaasi waa concern weyn, waxay nagu tahay xanuun haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed. askariga hadalkiisu aad buu ii xanuujiyey. 3 maalmood 4 maalmood baan ka warwareegayay inaan kelmad ka iraahdo. laakiin waxa khasaba oo muhiim u ah ciidanka arrinta uu askarigu la soo fariistay baraha bulshada in toos loo abaaro isla markaasna xal loo helo. wuxuu sheegay in qarax ay soo geliyeen masjid cali guduud khawaarijtu. qaraxii markuu dhacay oo aan u diyaar garownay inaan la dagaalanno waxaa soo galay buu yidhi 25 wiil oo ordaya oo amoodid buu yidhi niman dee meel ay u socdaan yaqaanoo waxay ku ordayaan buu yidhi kulligood meel uu noo yaalay gaari rasaas ay saaran tahay. marka wuxuu tuhmay silsiladda kore ee madaxda ah ayuu tuhmay. waa loo soo sheegay buu yidhi meesha ay taallo rasaastu. nimankaasi waxay u eg tahay mishin laysla ogyahay iyaga iyo qolyo ka tirsan dowladda oo intay soo galaan oo ay hub qaataan iyo rasaas iyo awood ay qaataan meel ay ku og yihiin dadna laayaan oo ay meeshaas dhalinyaro ku laayaan iyo magaranaysaa shacabba ay markaa haddana ay ka baxsadaan oo ka cararaan oo ay qaataan. waa soo galeen waa baxeen, waa soo galeen waa baxeen. istaraatiijiyad dagaal laguma gelin dagaal. horey baan u sheegnay, 10 jeeraan sheegnay, madaxweynaha waa la talinay, diyaar maaha. qaar buu qaatay talooyinkii. waxaa ka mid ahaa madaxdii dagaalka taqaanay qaarkood inuu soo celiyey, inkastoo ay qaar weli maqan yihiin, raggii la shaqayn lahaa ay ka maqan yihiin. madaxdii ka sarraysay askartan qaylinayso hadlaysa waa la tuunsan yahay in badan oo ka mid a. iyagii baa tuunsan oo hadalkaas wiilkaasi meesha uu ka soo hadlayo masjid cali guduud cid afka u gelisa ma jirto. waa nin front line-ka jooga. waa nin warkiisa in la dhegaysto u baahan, isla markaasna la tixgeliyo. waxa uu ka hadlayana lagu dhaqmo. muxuu wiilkaas ku hadlayaa oo ka cabanayaa? wuxuu ka cabanayaa in aysan jirin haba yaraatee sir ciidan. 2 in laysla shaqaynayo oo dad u digayaan oo u sheegayaan oo halkaa u leexda oo la hagayaba. ordaya nin ordaya oo meesha ku ordaya yaqaan baa soo gelaya buu yidhi. markaasuu wuxuu ku daray inay dhalinyaradii halkaa ku baaba'ayaan ciidankii. arrintaasi waa concern dareen weeye
madaxweynuhu dareenkaas hadduusan qabin kelmad aan sheegi doono ayaa dhaba soomaalida waxaan ugu baaqayaa inaan arrintaa la daawan ciidamada inaan saa lagu daawan odawaa oo ah taliyaha ciidanka waxaan leeyahay arrintaani kuma qabato maxaa xal ah anigu xal baan soo qadimaya waxaa mamnuuc ka ah caalamka aan ku noolnahay dagaal frontline-ka meesha waxbaddu ay ka dhacayso haba yaraatee inay telefoonna yaallaan haba yaraatee lama ogola signalkaan loo ogolayn iyo in lagu hadlana lama ogola waxaan ku talinayaa marka oo ku baaqaya say u dhan tahay ciidamada furinta jooga dhowrka qof oo hoggaanka ah marka laga reebo in gebi ahaanba telefoonada laga xereeyo xilliga dagaalka la gelayo telefoon inuu ka shaqeeyo dagaalka frontline-ka inuu telefoon personala uu qof telefoonkiisa haysto oo cidduu doono la hadlo arrintaasi waa no adduunka oo dhan meelay ka jirta male wuxuuba xataa khatar ku yahay signal ahaan in lagu soo taraagareeyo la ogaado meesha uu joogo qofkaasi iyo dadka ay yihiin iyo cidda u dhow iyo markaa qarax lala soo beegsado marka sidaa darteed waxaan ku baaqayaa in telefoonada gebi ahaanba ciidamada laga qaado marka laga reebo dhowr qof oo madax ah oo telefoonno la og yahay haysta telefoonadaas dhowrka ahna kulligood waa in la dhegeystaa waa in wire tab lagu xiraa la dhegeystaa ay og yihiin in la dhegeysanayo waxa ay leeyihiin isla markaasna haddii ay sir ciidan bixiyaan toogasho degdega lagu xukumo oo goobtaba lagu toogto xal bay keenaysaa degdega iyo sirta in la xafido ciidanku waa sir ciidan aan sir lahayn ciidan maaha mana adkaan karo arrintaa marka waa ku baaqaya waa qodobna way jirtaa madaxweynuhu waxaa la oran karaa it's about the time xilligeedii baa la soo gaaray soomaalidu waa inay isugu tagtaa meesha waa in dadka waxgalka ah oo soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb galaan shirka kadibna waa in talo midaysan dalkan loo yeelaa madaxweynuhu wuxuu u egyahay inuu yahay incapacitated adduunka oo dhan waxay leeyihin sharci madaxweynuhu hadduu fulin waayo ama gudan waayo xilkiisa sababo caafimaad ama aqooneed ama waxay ahaataba waxay ahaataba haddii la arko madaxweynihii inuusan ku socon dariiqad u adeegaysa dalka iyo dantiisa waxaa waajib ku ah ummaddaas iyada ah oo ay leeyihiin xeerar iyo sharciyo dastuurkay ku qoran tahay soomaaliya madaxweynuhu hadduu waajibaadkiisa gudan kari waayo madaxweynuhu xaggu u socdaa waxaa caddaan ah inuusan meelna u socdo markii horena waa niyad xumaa oo wuxuu ku soo galay ganacsi iyo qabyo ninkeedaa dhammaystira iyo waxaan urursan karaan urursanaya dhul baan gadanaya iyo waxbaan boobaya buu markii horena kusoo galay safaradan aa ujeedaan oo 4,000 oo xaba ahna kulligood lacag baa lagu urursadaa marka markii horeba waa niyad xumaa haddana waxaa u raacday tala xumo oo aan la aqoon meel u socdo dad iswada diidda ah wadamo iswada kulligood iska soo horjeeda oo kulligood cadow ku ah danta Soomaaliyeed buu kulligood la socdaa oo kulligood saaxiib leh oo kulligood heshiis la galaya oo intaas oo heshiis aan la aqoon oo qarsoodiyo saxiixa marka qofka noocaas oo kala la arko qofkaasi ama waa qof xanuunsan oo aan miyir qabin ama waa qof shidaysan oo meel kale ka shidaysan madaxweynuhu wuxuu noqon karaa asad cid kale ay leedahay wuxuu noqon karaa qof la leeyahay oo la maamulanayo qof loo tilmaamayo siduu yeelayo iyo meeshuu aadayo sidaani si caadiya maaha waxaan ku talinayaa marka maadaama madaxweynuhu isagu gogosha dhigay gogoshaa in loogu arrimiyo lambar 1 ciidanka oo Soomaaliya weerarkan hadda ay ku soo qaaday argagixisadu wadamaha ka shaqeynayeen in argagixisada sidii looga adkaan lahaa go'aan degdeg laga gaaro oo loo midaysan yahay ciidamadana la garab istaago si fiicanna loo garab istaago oo runa aan af ahayn si runa loo garab istaago waa qodobka labaad madaxweynaha in talada lagala wareego oo talada dhulka la dhigo oo dad magaranaysa kale oo madaxweynaha la taliya loo sameeyo oo madaxweynuhu dadka taladooda qaato 3 qof 4 qof 5 qof intay doontaa haatee madaxweynaha la taliya ilaa oo uusan taladooda diidi karin ummadda Soomaaliyeedna magaranaysa gaarsiiya ama si degdeg doorasho waa in loo qabtaa oo madaxweynaha xilkiisii la soo gaabiya inta ka hartay oo sanadka ka dhiman sanadka ka yar oo madaxweynaha u hartay halka sano ah
in lagala wareego oo madaxweynuhu uu dhulka dhigo oo doorasho degdeg qabto oo ku baaqo ama uu hawsheedii galo shaqada kalena uu joojiyo iyo safaradan iyo orodkan uu ku jiro iyo shirarkan iyo isdiidadan madaxweynuhu wuxuu marayaa dalal ajnabiya intuu u tago ciidan aan dagaal ii gala isiiya inuu yiraahdo ma Soomaalida ciidan u baahan Soomaaliya ciidan u baahnay madaxnimo ay u baahan tahay hoggaan bay u baahan tahay talay u baahan tahay madaxweyne ma qaban kartid shaqadan markii horena maadan aqoon qalbi xumana waa ku soo gashay waxa rabtayna wax boobtid dawladnimaduna saama hoggaanku ma aha dan shakhsiya qof raadinaya qof kasta oo dan shakhsiya ka raadiyana waa ku fashilmaa nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam imaaradaas qofkii isagu soo doonta oo danihiisa iyo shakhsiyadiisa u soo doonta oo isagu wax ka raadinaya looguma kaalmeeyo qofkii la doonto ummaddu ay la doonato oo la rabtana waa loogu kaalmeeya macnaheedu waxa weeye qofkii raba ummadda danteeda inuu ka shaqeeyo oo ay lillaahi ka tahay oo ummaddaas qasad kale aan ka lahayn oo aan ahayn inuu iyada u shaqeeyo ilaahay waa u kaalmaynaya maxaa yeele ummaddu waa ummad muslimiina oo masaakiin oo dhibaataysan waad arkaysaan suudaan waxa ka dhacay nimankay suudaan iska cayrisay buu madaxweynuhu hoosta kaga jiraa waxaan fahmi lahay madaxweynuhu muxuu u garan la'yahay isaga iyo maamul goboleedyada kala taagan intuba hoostay kaga wada jiraan inay cadow yihiin muxuu u garan waayo hadday imaaraad dad wanaagsan yihiin maxay ugu soo qaban waayeen raggan kaloo bannaanka taagan maadaama ay kulligood iyagu ay gacanta ku hayaan isaga ay gacanta ku hayaan iyaga ay gacanta ku hayaan maxay u kala fogeynayaan balkanization of the nation wax kale ma rabaan waddanku inuu googo'ay rabaan oo ay qayba meel ku maamushaan suudaan ilaahay baa ka kiciyey subxaana wa tacaala laakiin waxay u geysteen waa la ogyahay yaman waa ogtiin oo ilaa haddeer ay beerka kaga taagan yihiin libiya waa laga dhaqaajin laaya ilaa iyo hadda dhibaatadii waa taagan tahay balaayaday abuureen baa weli taagan soomaaliyana waxay ka samaysan doonaan wax lala yaabo oo suudaan ka daran ogaada suudaan iyo libiya iyo hubka iyo logistikada lagaga weeraro soomaaliya laga qaadaa puntland baa laga qaadaa boosaasaa laga qaadaa halkaasaa u ah base ay ku soo degsadaan military material ama waxyaabaha loogu talagalay ciidamada halkaasay ka raraan soomaaliya waxay ka rabaan u socdaan ujeeddadoodu tahay wax la yaab leh madaxweynuhu wuxuu marayaa inuu yiraahdo ciidan ha laysiiyo ii dagaalama madaxweyne ciidan uma baahnida talaa u baahan tahay marka taladaas aad ku baaqday iyo fadhiga aad ku baaqday miiskaa saar talada waa iga taalaadhe gobonnimo iyo sharaf weeye war anigu wadi kari waaye bahashan ha loo taliyo ceeb maaha waxaa ceeba waxaadan wadi karin inaad isku dhejisid ilaa aad la dhunto oo dalkuna kula dhumo intaasaan odhanaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum